Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaad channelkeena Ifaat. Muuqaalkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay 10 waxyaabood oo laga yaabo inaad ka ogeyn waddanka Pakistan. Haddaba intaan barnaamijkeena guda gelin, magaca Ifaat haddii aadan hore u garanaynin, Ifaat waa boqortooyadii hore ee Geeska Afrika ka jirtay oo markii dambe isku beddeshay boqortooyada Cadal oo uu hogaamiyaha u ahaa Axmed ibn Ibrahim al-Qazi oo ismaalinta badan u garanayso Axmed Gurey. haddii aad u baahan tahay faahfaahin dheeraada ama inaan ka sameyno muuqaal, fadlan nagala wadaag comment. Sailcoat waa meesha ugu ballaaran ee laga soo saaro kubadda cagta, waxayna sameeyaan 40 ilaa 60 milyan sanad walba, taasoo ah 50 ilaa 70 boqolkiiba wadarta guud ee kubadaha caalamka laga soo saaro. Pakistan waa wadankii ugu horeeyay ee Islaam ah ee samaysta awoodda nuclear-ka. waddanka Pakistan wuxuu leeyahay wadada ugu dheer adduunka ee laami ah. laba qof ayaa ku guuleysatay shahaadada Nobel Prize-ta. labadaas qofna waxay ahaayeen Malala Yousafzai oo loo siiyay nabadda 2014 iyo Abdusalaam oo loo siiyay maadada fiisigiska 1979. Karachi waa magaalada ugu ballaaran Pakistan, waxaana ku nool 17 milyan oo qof. sidoo kalena waxay leedahay dekad. Karachi waxay ahayd caasimadda koowaad ee Pakistan ka hor intayna Pakistan madaxbannaanida qaadanin 1958. dadweynaha waddanka Pakistan 2017 bishii August wuxuu ahaa 207,724,520, taasoo ka dhigaysa waddanka lixaad ee ugu dadka badan adduunka. magaca Pakistan micnihiisu wuxuu ku noqonayaa Bershiyaanka iyo Urduga, dhulkii nadiifta ahaa. Pakistan International Airline waxaa la aasaasay 1946. shirkaddan duulimaadyada ee Pakistan waxay 1962 ay xidhay inay tahay shirkadda ugu degdega badan markay London ilaa Karachi ay u duushay muddo dhan 6 saac 43 daqiiqo iyo 55 sekin. dhacdadaasna waa mid ilaa iyo hadda u diiwaan gashan. kaynta ugu weyn ee adduunka ee dadsamee ah waxay ku taallaa waddanka Pakistan. waa 12,423 hektar. kayntan waxaa lagu magacaabaa Changa Manga Forest. magacaana waxaa loogu bixiyey markii laba walaalo ah ay qolo gangistare ah ku dileen kaynta dhexdeeda. ciidanka ciirka ee Pakistan waa ciidanka ugu tababarka fiican. waa sida lagu xanto adigu ma ku raacsan tahay? Islamabad waxaa lagu qiimeeyaa inay tahay caasimadda ugu quruxda badan adduunka. badan isla daawano si aan u qiimeyno.
ah.